بسم الله الرحمن الرحيم. أمد الصوماليات iyo raad mas'uuliyiinta raadiyaha maanta waan salaamayaa adeer macaani taasi wuxuu yahay sariirada og marka magaalada muqdisho amnigeedii dhalaa mas'uuliyadeeda qaaday oo ah taliyaha booliska gobolka banaadir taliyaha nabad sugidda muxuu ahay gudoomiyaha gobolka lamaan taliyaasha saldhigyada iyo gudoomiyaha degmooyinka ayaa qaaday marka waana arkaynaa anagu dhibaatooyinka soo dhacaya haddii dhibaato soo dhacdo kulley waxaa jiri karaya oo la ogyahay oon qarsanayn mas-uuliyad xumo shaqo xumo adeer macaan amniga gobolka banaadir dadka sugi kara marka horeba looma dhiibin dadka oo hadda amniga ku tilmaanayna inay ka wareegaan 6 biloodba lagu dayo dad aan isticmaal lahayd haddii dawladdu ay tala qaadayso ay cabashada dhiganayso saldhigyasha degmooyinka banaadir dad gobolka kale laga keeno iska midoow ahaa la keenay oo shiiqi iyo tuugi aan kala aqonin marka adeer macaani mas-uuliyad xumada waxaa hadda iskale dadka amniga ku tilmaaman gudoomiyaha gobolka wuxuu leeyahay dhulaan dumaha safaaradaskiiha uu leeyahay taasi waa qalad howlihiisa ma ahan dhul ruqsad loo siiyay asaga bixin ma kariyo oo dad horta ruqsad u haystay dhulka dowladda ay u baahan tahay dadka deegaanka litrakoobtay meel dejisaa asay dhulka anaga u baahan tiraha hogaankii lahay ma ahan waxaa hadda biryaanka maqlayo aad farta loogu hayo baarka weeraro inay ka dhacaan dhulkan mariiniska iyo dhulka nawaaxigiisa ahee bulshadu ay degtay kadib markii danta guud laga saaray sidii u deganaatay aniga taasi kaasaan kaa leehay markaan usoo naqno amni xumada jirta magaalada adeer macaani amni xumadaasi la wada qaadan maayo waxaa iskale gudoomiyaha gobolka iyo inta la shaqaysa wasiirka amniga iyo inta la shaqaysa ayaa iskale mas-uuliyad xumadaas dawladuna waa ogtoo hadda waxaan arkayay iyadoon qof bulshaa mari karin wadada ayaa qaraxya marayay say u mareen intay ka yimideen ma la isweydiiyey horta sidaas waayo warshayga waana la ogyahay dawladdu hadday rabto inay dalka iyo dalka u shaqayso deegaankan dadka u dhashay amnigeeda ha u dhiibto ha kula xisaabtanto hal qof ha loo casilo ha loo ciqaabo wixii dhaco dhib hoo dhac waa tahay waxaad sheegtay in maamulka gobolka banaadir uu ku mashquulay in uu dad dhulka kiciyo dadka aad sheegaysay ee dhulka laga kicinayo noo sheeg adeer macaan waa maqlaysa in la dhahayay muxuu ahaayeentu safaarado bilaada qurxaaya ayaan dhul xeereedkan siinaynaa waa mamnuuc in safaarado badda la saarayo dekedaha loo dhaweeyo hadda cawadnadooda waxay rabaan inta soo gashtaan ay ku anqalaabi karaan safaarado meelaha la dejiyo waa la yaqaanaa adduunyada sharciga internationalka oo fiyar dhul xeereedka safaarada lama dejiyo meelaha ay ku yaalaana waa meelo oo aan bad saarayn oo la ogyahay oo lagu kontrooli karo hadda bad laguma kontrooli karo taasi waa qalad waa nidaam aanan ku aalin sharciga safaaradaha amba xiriirka caalamiga marka inuu amniga inuu ku mashquulay yahay gobernatoruhu waa nabadoonkii muqdisho walax ciidamo mariinaysa dhul lahaa jireen iyo taliyo mariinaysa dhul lahaa jireen ha laga kaco ilaaho ma mariiniskiyaa ma hogaanki iska lahaayo u baahnaayaa mataqaana qaadanaya bulshaa la sigay gobernatoro asaga lamid ahaa sigay muddo u qabtay arrintaas adeer waa qalade muddaha u qabto dadka degmooyinkiisa dawlada amniga kala shaqeeya hadday mas-uuliyad xumo dhacdo kuwaas ha ku mashquulo gobernatoraha asagana sidaasaan leehay inuu qaadan doono oo maleha fikirkaas waa haddii horumar la rabo bulsho markaan uga gudbo dhulka arrimihiisa dhulka waxaan kusoo koobaya dhulka arrimihiisa dhulka dawlaa bixisay nidaamyo kala duwanaa lagu baxshay dawladda ay u baahan tahana hogaaminta iska lahay in laga soo maro hogaaminta ay ayaga waa u baahanay yidhaahanay ahayd dadkana meel kale la dejiyo berkey qarashaa galay waa laga canshuuray waa la dejiyey qof ku
degan hadba u mahima inay jirto waa tahay marka taa kasoo tagno maamulka gobolka banaadir dhaliilo badan baa loo jeedinayaa oo dhanka nadaafada iyo amnigu way ugu baaxad weyihiin iyo sidoo kale maamul xumo laga tuhmayo halkee marka maamulku uu ka jiracsan yahay oo adigu waa tilmaami kartaa adeer macaani wax walba dadka u naxaya ee u dhashay ee ka shaqeeya gobolka banaadir shaqaalihiisa gobernatooraha uu og yahay marka isaga la sheegaya intuu ahaa inta kusoo kordhiyey iyo qabiilaha yihiin beelaha yihiin meelaha laga keenay waa dad la soo xawilo gobollo kale laga keenay qaabkay u shaqeeyaanna qof ay ina jirin adeer macaani amnigu sugmi maa nadaafad ku dhalamee wax ku hagaaga male gobol walba dadkiisiyaa maamulka war cashuurtaan ha qaada dawladda laakiin gobolkan dadka inay madax banayso oo una shirka laga dhigin hada degmooyin laga dhigay dad gobollo kale ka yimid taliya saldhig looga dhigay gudoomiye degmo looga dhigay dadkan maxay qabanayaan haddii dadka gobollada kale ay taliya saldhigii gudoomiye degmo kan laga qarin deegaankoodina ayaga loo madax banayn nadaafadna ku dhalamee amnina ku dhalamaa dad gobollo kale laga keenay nin jeclaysi loogu qoray gobolkaana ay ugu noolaado hata meeqaa ugu qorantay shaqaalaha gobolka banaadir waan ognahay dadka keenaan ognahay kuwa hadda lasoo wadaan ognahay adeer macaani midaasi war dadka yaanan kacdoon bulsho iyo cadaawad kale dowladda cadaawaday leedahay cadaawad kale yaynan abuuran oo dadkan xuquuqdooda duudsan sidaasaan dowladda leehay aniga hadalkayga maahan mid mucaarad maahan mid ayaga wax looga rabo ee waa nidaam bulsho hogaamin bulsho oo toosan waay warkayga waana dhibsan doonaa waa ogahay laakiin nin wax dhibsanaya ee dantiisa kaliya u muuqato bulsho ma hogaamin karo sidaasaan leeyahay madaxda sare ee dalka waa tahay caasimada sow kama dhexayso ummadda soomaalida oo idil caasimada waa aragtay wasaaradihii miyaa la dhihi karaa dad gobollo kale ka yimid kama shaqay karaan war gobolkan banaadir ha u dhaafaado dadka u dhashay ee caasimada wasaaradahaas iyo maxkamadda iyo meelahaas ayaa iyo taliyaha booliska Soomaaliyeed laakiin mudane dadka ka dhaxay kara laakiin gobolka banaadir gobollada kale la mid yahay laakiin mudane qofka muwaadinkaas uu xaq u maraa inuu ka shaqeeyo gobol walba oo dawladdu u dirto ama markaas ay u ogoshahay aniga hadda biriga hadii hadda Muqdisho laga qaado gobolka Sool la geeyo kama shaqay karo fuugiisa ma aqaan walaadkiisa ma aqaan kama shaqay karo waxaan aqaanaa inta isku soo Muqdisho inta maxaafadooda degan yahay inta meelo duudiga dhibka ka imaan karo intaasaan ogahay waana ka hortegi karaa haddii nidaamka horumar la rabo haddii dowladnimada aanan rabin hadda waxaan maqlahay militariga iyo mushaarka laga gooyay oo hadda cabasho qabay waa qalad ilaa ra-iisul wasaaraha oo ahay madaxweyne farmaajo ayay ciidamada shaqeynayeen in hadda la yidhaahdo mushaar male iyo wehel oo dad kale la qoro warbadiiska hadda gobolka banaadir loo qoray oo kale dad ahaa ayagana militariga la gasho rabay adeer macaani nin dowladnimo raba military ma dhibo ciidan ma nin walba wuxuu meelaha uu yaqaano u dhiibaa maahee nin jeclaysi laguma qoro dad sidaas waay aniga warkaygu cidna loogu daraamaayo hadday ida daraysiisan yaa sidaasaa idin leeyahay maanta watay mudane inagoo aad kaga mahadcelinayno waqtiga qaaliga ee aadna siisay si bulshada aad ugu bidhaamiso waxyaabo badan oo kaa guuxaya dhaliisha maamulka gobolka banaadir miyaa leh mise dowladda dhexe dowladda dham aale amni waxaa qaas u yahay gobolka banaadir dadka gobolka banaadir ku tilmaamno taliyaha hoo gobolka haddii amarka kale codeyso kale miyay wax ka qaldan yihiin bulshada uma sheegin ayagaa iskale dowladda dhexna way leedahay nin jeclaysi wax kusoo qortay waxayna iyada soo dhiibin gobolka lagama ansaxsho lagama hirgelisho waxayna goboltooraha farin ma sheegiyo waxayna iskale dowladda saraa iskale mas-uuliyad xubadaas waa inuu is-casilaan taliyaal waa in dad loo ciqaabaa dhibaatada ummadda ku dhacaysa laakiin kan hadda firinaag umura oo foolaha oo waxa u waad isbitaal banaadir loo wado haddii laga soo qaado gobol ley jidka ma mari karto muxuu ahay haddii laga keeno meesha la yidhaahdo iyadana dhinacaas kale darteeley laga keeno waa dhib ma mari karaan laakiin mudane waa socdaa sidoo ku socdaa ma aqaan aniga lagu laxa ahay magaalada kuma mari karo oo gaadiid kuma mari karo idinkaar xataa ma rabna leeyahay dadkaas waa tahay maalin walba in qof xil laga qaado qofna loo dhiibo wax natiijo ay soo kordhinaysa malahan
marka soo ma haboon in kuwa jooga oo kaliya lagu adkeeyo inay shaqadooda gutaan aniga kama hadlin xil u dhiibis iyo xilka qaadis waa in mas-uuliyad xumada jirta dad lagu amaal mariyaa haddii amni jiro hadday mas-uuliyad xumo jirtaan dad lagu ciqaabaa in xilka laga qaado kaliya maaha waa in lala xisaabtamaahe amni darrada iyo dhibkii dhacay xisaabta ay leedahay hala marsiiya maayna ma ahan aniga ma ahan ha laga qaado ha loo dhiibo markasta may ciqaab waa inay timaado oo dowladeed oo amni darro oo mas-uuliyad xumo haddaynan imaanin wax kaagaa ma jirto waa tahay adigu waxaad sheegataa inaad tahay madaxweynaha Banaadir State halkee ka arrimisaan marka aniga waaba la diiday dowladdiyaa diiday Banaadir State gobolada kale aan la mid ahayn lalama ogolo waana la dul fadhaa waxaynayaan la cunaa haddaan wax sheegnay ama hadalnana hadli maagnay shiri maagnay cabashada dowladda kaysa maagno goboladaasaan lamid ah la yidhaahna waxaana la yidhaha shiri ma kartiin hadli ma kartiin waa dad noolaanahay qoomeyn jirtaanahay gobolkanaan u dhalanay ma baabi'in ma nabaad guurin laakiin dowladda annaga goboladeeda miyay kala jeceshahay dowladaan ka rabnaa weliba degdegaan uga rabnaa Banaadir State waa 18 gobolkan ka mid yahay weliba mudnaano sii leeyahay 3 degmo ka mid ah maamul goboleedyada qaarkeed dad badan marka adeer macaan aniga arrimahaygii dowladda diiday ayaa mas'uuliyadda qaadaysa maamulka Banaadir State oo lagu xisaabtamayo loo qaadi lahay dib ka dhaca adeer hadday cashuur qaadahayaan ay dhaqaalaha sharci ayaa u kala qeexaya gobolkana waxba u dhihiya ayagana waxbay helayaan gobolada dhanna waxbay ka qaadanayaan maahina ay isdhigin xageed wax ka cunaysiin aba wax ka helaysiin haddaad Banaadir State ogolaatiin adeer sidaasi waa qalad waa la dib u dhac in gobolada la kala jeclaysto dadka la kala jeclaysto dadku waa isku mid waa isku xaqu laakiin gobolkan dadka u dhashay ha lagula xisaabtamo amni darradiisa mas-uuliyad darradiisa ha lagu abaalmariyo qofkii si fiican u gudato ha lagu ciqaabo qofkii qalab oo ka dhaco degmada sidaasaan aniga u baahanahay rabnaana una fadhina aad baad umahadsan tahay kaana waxa uu ahaa madaxweynaha Banaadir State Cabdullaahi Dheere